السلام عليكم أصحابتي حرام دمانتي وإذن سلامة ما أنت جلس العبدية وحوريس ما يشرم أبوي وحيران سلولي يسنو dadka وحيران محالي إسكريب كلا سيقو صوبر قولي يقوانيو دمانتين أصحابتي لليكتي شركة وحوروني تسكريب كلا يسارو دمانتي قولي يقواني ما إذا ليا عاد جلس العبدية يشرم أبوي وحوريس ما يشرم يسنو ها إمك هذا بالمركلة يا هذا درس له ما ترتاح يروح النيل كصدي أصبو شينا ما أنا ومحلي هذا وحي محلي هذا ضد اللي صومالي إيو طلع صاحب إيو كوال تشلي الله يمد وين ترتي أرنكاس إنه سمي أو محلي هذا وخاخري مع الله يعني لمبر ويجري وحساس محلي هذا كتبنا قبل يرد شيء ويرد شيء ولا تركوا ويرد شيء عنده وصوف سنة ولا محلي كسر هذا لنا ما رك تعرف بينين وحاول إسمان ناس وجري أي ولا تركوا أو خلطنا وحاول أو أرنكين وبستاجي ما دام هو يري وحاس هو فيك تخوفك والبسيكين وضدكاس وفهميه سيدنا waxaa wareysanay waxa dadku yarmeysanayaan waa qofka la dhashay sax marka laga yaabo marka oo siikii markuu arrinkaas arkay nidaamka jeebkiisa uu qabay saaxiibkii marka waxaa waxba ka jiraan shiinana anigu ima qaraaban wax jeebkiisa ana ma jirin waxa waay nin oday Soomaaliyeed waxa waay dadkii aniga ii kacay oo kamid ahaa afookaas dawuu jiray maxaa la yiraahdaa xogaha yar ku soo dhacday jirto oo isoo sheegay oo shirkadaas taalaan diiro waxa weeyde hala sadaqeesto wax saas ah u badneen aaminsan toolaal because waalid jooji asoo oo wax yar maray la yaad lacag $250 baa saas marayo runtaas yani baa la joojiyay fahantay صح naxdaas markaa soo baxay waa la soo wacay nin lacagtaas meesha isku taalo ma soo doonaysaa waa lagu yiri waxawaay anigu sadaqa iga taanay masaakiinta lagu sadaqaysto okay marka lacagtu 4,000 ma ahayn 200 iyo dhowrkaas $4,000 ma ahayn Soomaa 4,000 ma sheekada saas markuu akoonka loo furay maxaa la yiraahdaa kuwa ila dhashay baa soo hadlay oo yiri waxaas waa fiik dadku qaraabada jiro kaas waa soo dhahay taasna wuu ku khaldanaa walaalkii soo feesana wuxuu ugu khaldanaa inuu waxa waay si gaar ah oo la hadlo oo dadkii taleefanadooda waa uu hayay oo dhaho bashiina waxa ay wadeen barnaamijyadan joojiya beeyada sidii uu soo fariistay social media waxa waay maanta anigu markii la dhaho tol waa ka dhashay dadna waa ka dhashay haddii ay wax gaaraan iyo haddii aan qof wax gaarsiiyaba waxay u taalaa tol oo maxaa la yiraahdaa qof walba oo tol oo ka dhashay aniga ilaa hadda maanta gaaraan haddii qof wax u geystay adiga laga xisaabtamaya ehelkaaga laga xisaabtamaya ka gudbo oo dhaafsan oo way Soomaalinimo markay imaanayso waxa waa dhalinta u baahan in wax loo aruuriyo oo maanta loo gudmado waa dhalinta elitary iyo ku xiran maaragtay dhalinyarada maaragtay oo maaragtay meelaha sleepy iyo ku xiran ninkaasina ahna wuxuu sameeyay kuma qaldana ninkaasiki aan wuxuu sameeyay kuma qaldana dhalinyarada aniga shakhsi ahaanteyda oo iga codsi ah aan siraa inaan walba khibradiisa talentiisa meesha isku joogay ilma adeeryaal in maaragtay oo hadalkayga waan saxmayo in loo daayo baa asxaabana dhamaantooda kurtiga waa garabkayga oo inay dhaxdhaxaad inay ka noqdaan oo iska dhaafaan oo views-ka haduu galana oo macnaha oo views ay tahay waa good waa ka social boy dadka waa dhexdhexaadinooya ma sha Allah maxay aqliga ku jira aqliga qof weyn ku jirin waaye dhamaantii guriga gobonada asxaabta social media isku haysato sikiin group badan bismillaahir rahmaanir rahiim meesha hol cusaan ku dhahay shiino culay subhanallah wardado dadkii adinka youtuberada waa weyna ah dad adduunka qaxisiin inta leedin geena war naga daaya baashaalka oo nagu baashaalaysa limayo anu waxa arkaa inaad baashaaltay meesha aysa ahaynba magaciisa guriga gobonimo idin rajaa dhammaantiin guuleysta dhammaantiin naga daaya hada baasha naga daaya limayo insha Allah guriga gobonimo insha Allah guuleysta walaalaha insha Allah yarboy waa kaas soo hadlay waa kaas uu dhexdhexaadeen okay waa hadii dhexdhexaad yeelayaan laakiin insha Allah walaalaha guriga gobonimo idin insha Allah dhammaantiin yaa lagu xumaan aan darood nimi haweenamihi
dhexdhexaadkiina ah insha allah gabar walaashay Soomaaliya Soomaaliya qabiilkayga ah insha allah qabiil wuxuu tala mala qabiil waa halkaas mid ka nabiga insha allah guuliga